بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidaan ugu waxyoonay nebiyadii hore ayaan adigana nebiga kuugu waxyoonay sallallahu alayhi wasallam waxyoonay qur-aanka carabiga ah saad ugu digtid reer makaad iyo waxa ku xeeran dadka ku xeeran agaraarkeeda degan ugana digtid maalinta kulanka qiyaamada shaki male maalintaas kooxi janay geli kooxna jaxiimo ay geli waxa ay ka soo baxday aayadan suuradda ashuuraa aayadda 7 weeye saas ma aha ee dadku wuxuu doortay nolosha adduunyo ee dhow aakhiraase khayr badan baaqina ah hari doonta aakhiraase ka fiican bal turuuna xayaati dunya waalaakhiratu khayrun wa abqa waa suuratu alaclaa aayadaha 16 ilaa 17 waa casharkii ugu horreeyey ee xarunta xaruur ee maanta casharka waxaan ku eegayaa dadka dulmiga taageeray ee sunnaha ah dadka sunnaha ah dulmiga yuhuudda iyo reer galbeedku ay wadaan reer galbeedka waqooyiga maraykanka iyo yurub ay wadaan taageeray waa dadka sunnaha ah waa turkiga waa carabaha khaliijka urdun masar indonesia morocco jabuuti somaliland soomaaliya etoobiya malaa 50% waa 70% mooye muslimiinta laakiin waxaa la yidhi waa 50% Pakistan Tajikistan Kazakhstan Azerbaijan Turkistan wadamo yar wadamada aan taageerin way yaryihiin waa Algeria Chechnya Dagestan Kushita Malaysia inkastoo dowladdu ay taageerto yuhuudda la macaamiisho dadka Malaysia waa dad fiican waa dadka keliyaan arkay ee iyagoo ardaya ingiriiska arday ku ah mudaharaadyada kasoo qaybgali jiray qof iyo 2 iyo 3 kuma iman jirin kuma waxay ku iman jireen racab 20 bay ku iman jireen arday yar yar oo wax baratay wiigii hore yuhuuddu waxa ay ansixisay golaheeda sare waxay ansixisay in maxaabiista falastiinta la dili karo la dilo sharcigooda uu dhigayo sidaas maxaa loo dilayaa buuggooday kusoo qabsadaan buuggooda kala saar maaha buuggooda toora maaha yuhuudda tooray aaminsan tahay masiixiyiintuna injiil bay aaminsan tahay ordoo u tag diintaa kaga bixi injiil iyo toora ma aaminsan waxay aaminsan yihin waxay gacantooda ku samaysteen yaa yiri ilaahay baa yiri intay wax samaystaan bay odhanaya ilaahay buu ka yimi ilaahay baa qur-aanka kugu sheegay qur-aanka si fiican wadaadada waxaad arkaysaa waxaa iska odhanaya ummadda waxay la baabaaday wadaadadiiba ayaa qoslaya mid baa jira kiiniya joogo oo layguyiga ogaadeen oo dadka ka qoslaya intaasoo qofka ku qoslinaya waayo qosolkii doonaya qosolku waa maxay waa qofka murugaysan in laga qosliyo doonaya oo isla socda markaan bartay cilmiga dadka cidina may barin wax isu gegeeyey qofku ka murugaysan madadaalo dedeeya ama hees ama xaflad ama aroos tagis ama maqaaxi fadhiiso ama wax daawasho ama qof kaga sheekayso ama telefoon ku hadal waa calaamadaha lagu garto marka dulmigii bay taageereen maxay u taageereen haddaba waaye maxay intaasoo wadan ay u taageereen dulmiga somaliland oo keliya maaha dulmigu xitaa wuxuu soo gelayaa inaad mudaharaadyada iyo cadaalad darrada aad ka soo horjeesan weydo dadka reer koonfur ee reer soomaaliya ee badankooda waxay ka tahay colaad bay ka tahay somaliland ku hayaan kama aha cadaalad iyo naxariis iyaga laftooda cadaaladdarma iyaga laftooda yuhuud iyo maraykanka way la shaqaystaan mudaharaad kama qayb galaan waxba ma qoraan muuqaalo kama sameeyaan dulmiga marka
aqoonsiga somalilan badankoodu daacad way jiraan laakiin way yaryihin badankoodu waa colaaday somalilan u hayaan ee maaha naxariis iyo cadaalad ay ugu istaagayaan maaha inay kaga soo horjeedaan aqoonsiga yuhuudi iyago laftooda way taageeraan saa sheegay muuqaalaan ka samayn doona waxyaalaha ay soomaaliya ku taageerta dulmiga way ka badantay somalilan marka la eego maxay ku dhacday marka labadii aayadood ee aan ku furay wa fariiqu fi janna wa fariiqu fi saciir markaan aayaddaa bartay waxaan haabaan filayaa 12 horaanteedii baan ahaa madrasada ibtidaa'iyadaan barani jiray carabiga wax kastoo lagu dhigi jiray xisaabta cilmiga fiqiga juqraafiga riyaad siirada waxoo dhan 12 jir baan ahaa horaantiisi laakiin waxaan fahmay 12 jirkaygii in jannaduna ay xaq tahay naartuna ay xaq tahay markaasaan ka baxay haloo duceeyo dadka ma u duceeyo anigu qof muslima oo cadaab kusii cararaya dulmi taageeraya waxaa idhahdaa jannatu xaq wanaaru xaq fariiqu fi janna wa fariiqu fi saciir waxay u taageeraan waxa ay doorteen noloshii adduunka laakiin aakhara ka fiican buu ilaahay yidhi laakiin aakhiro ayaa ka fiican marka si kastoo aad wax ugu sheegto cadaabta kusii cararaya waayo cadaabta ilaahay ugu sameeyey inay dad galaan oo ibliisku dhagta wax ugu xashaqo aqoonsiga somalilan soomaaliya oo dhargiisa maraykanka la xidha suudka xidha ragga dabayaaca gabadha caruurtaada tuur siyaasadda surwaal xidho